ururka samafalka ee gargaar iyo gurmad oo ka shaqeeya inta badan caawinta dadka danyarta iyo agoomaha oo lagula tacaalo ka garab istaaga waxbarashada iyo caafimaadka iyo hadba baahida jirta munaasabadani maanta ayaa waxay daarneyd ciidsiinta qoysaska tabaalaysan iyo kuwa agoomaha deeqdani la soo gaarsiiyay waxay dhanayd 9 qoys agabkii ay ku ciidsiin lahaayeen caruurtooda kuwaasi oo ku sugan magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal waxaana la soo baxay walaalaha muxsiniinta ee jooga dalka Norway oo kamid ah saraakiisha ugu sarsaraysa ururka gargaar iyo gurmad waxayna la soo baxaan xiliyadan oo kale deeqdani ayaa noqonaysa tii koobaad ee noociidan oo kale ah ee soo gaadhay gudaha magaalada Boorame ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka gargaar iyo gurmad laantiisa gobolka Awdal mudane Jamaal Siyaad Cali gudoomiye ku xigeenka ururka Samsam Cabdi Samed Aadan xogayaha ururka Cabdiraxmaan Xaashi Cige iyaguna dhamaantood buu mahad celiyay guud ahaanba laamaha kala duwan ee ururka ku sugan dalka iyo dibadda waxayna hadaladoodu u dhignaayeen sidan marka labaad waxaan salaamayaa ururka gurmad iyo gargaar kuwa dalka jooga ee ka shaqeynaya iyo kuwa dibadda jooga waan salaamayaa dhamaantood baan salaamayaa khaasatan kuwa Norway jooga aad baan u salaamayaa maanta waxaan kala joognaa waxa weeyaan xafladii aan ku siineynay dharkii ciida danyarta iyo agoonta waxaan bixinay dad tiradoodu tahay ama caruur tiradoodu tahay dhan tahay 9 ciyaar hawshii loogu talagalay in la fuliyo waxaana fulin maalintii loogu talagalay waayo maanta maalin ay ka liitaan dadku ma jiraan markuu ururku eegay dadkii qaarna ciidayeen faraxsanaayeen inay murugeysnaayeen bila ciid ahaayeen ururku wuxuu ku deeqay in dadkaasina la faraxsanaadaan bari ciida insha Allah hadii alla yiraahdo waxaan aad ugu maacinay dhammaan ururku meel kasto joogo khaasatan kuwa jooga ee Norway gaar ahaan caasimada Oslo waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin ururka gurmad iyo gargaar wuu sii wadi doonaa hawshaasi wuxuuna ku tala jiraa inuu in kasta oo maxay hadafkiisa iyo hiigsigiisa uu yahay inuu sii wadan doono meel kasto joogaana dhammaan dhalinyar iyo caruur iyo cid kasta meesha joogan in halka ka sii wadi doonaan kulli ujeedada maanta la isku imaanay waxay tahay si loo qaybiyo dharkii iyo waxoogaagii waxa weeye loo kaalmeynayay agoomaha iyo danyarta alxamdulillah hawshaasina waxa uu qabsoontay sidii loogu talagalay ilaahay mahadi insha Allah waxaan rajaynaynaa hawshana inay noo sii socoto taasi kadib iyaguna dhankooga waxa ka dareen celiyay qaar kamid ah waalidiinta ay soo gaadhay deeqdani ciidsiinta waxayna hadaladoodu u dhignaayeen sidan muslimiinta dhalinyarta ubaxa gargaar kale kuwa xusoo dhiibaya kuwa deeqda keenay inta waan salaamaya waxaan uga mahad celinaynaa deeqda ay ciida keeneen inay ugu wadaan ciyaalka in agooma ay leeyihiin in rajooyin ay leeyihiin in waxba aysan bay leeyihiin in maxay hayday iskuulka dhigan garaneen bay leeyihiin waxa kale oo salaamaya ururka gurmad iyo gargaar ayaan salaamayaa sida ay noo ciidsiiyeen iyo sida caruurta ay ugu farxiyeen ayaan salaamayaa anagoo joogna magaalada Boorame waxa weeyaan halkan waxa lagu ciidsiiyay 9 qof ayaa lagu ciidsiiyay oo caruur ayaa lagu ciidsiiyay si fiican buu ciidsiiyeen iyaguna waa mahadsan yihiin intaas aan leenahay inay gargaarka ay sii wadaan iyo taakulada ay bilaabeen ayaan horta ka codsanaynaa waxa kale oo waxa weeyaan ciidda iyo gargaarkan ay noogu tareen iskool waxbarasho oo bilaash ayay noogu tareen galina waa shaqayn jireen ilaa sanad ku dhow waa shaqayn jireen suxufi cishqa telefishinka Saab TV magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal